Tvga madaxa bannaan ee Star TV oo booqday maanta deegaanka Godwaraabaha oo deegaan ahaan hoos yimaada degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo aan u kurgalayno bal inaanu wax ka ogaano baahiyaha aasaasiga ah ee deegaankaasi ka jira sida waxbarashada, biyaha, caafimaadka. Ugu horreyn waxaan nooga warbixiyay baahiyaha deegaankaas dadkii aanu kula kulanay goobtaasi. Sidoo kale waxay noo sheegeen dadkii kala duwanaa ee aanu kula kulanay goobtaasi inaanay ka jirin deegaanka Godwaraabaha goobo waxbarasho, sidoo kalena ay ka jirto biyo la'aan baahsani. waxaana dadweynahaas kala duwan baaq u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. baaqaas oo ahaa in cabashadoodaas wax laga qabto oo hoos loo eego. iyagoo amuurahaas ka hadlayana waxay yiraahdeen halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Godwaraabe. wuxuu dhisnaa iskuulkani 6 sano, sanadkii 6aad ayuu gelayaa. waxay ka kooban yihiin 6 fasal ama 6 level, koobaad ilaa 6aad. ardada cusub ee fasalka koobaad ama awlada loo yaqaano ee sanadka la qaadanayo aanu qaadanay ilaa iyo 5 fasal oo hore. 6 fasal ayuu ka kooban yahay. 6 fasal waxay wax ku barataa halka qol ee dhismaha iskuulku ka kooban yahay waa hal qol, waana 2 gelin. waxaan salaamayaa madaxweyne Muuse Biixi oo iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa iskuul noo dhiso. waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne, annagu maanta ummadda gobol Sanaag way cabanayaan, caban mayno. waxaanu leenahay horumar baan u baahanahay, abnaas horumar bay u baahan yihiin. adiga qiyaamaha lagu weydiinaya hadday kuwii xukuumadda hore ka gaabisay maanta adiga jooga. ballanqaadkii wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne adiguna inaad hirgelisid, isagu daacad buu ahaa, laakiin de gacanta adiga wax ku haya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo wasiirka. waxaan uga warramayaa halkan waxa ku nool dad 150 barakacayaal insha Allah taala. waxaad ugu taakula waxay helaan adigu hay'adda taakula ayaa adigu dhowr jeer ku soo noqnoqotay oo wax u yare waxaysay iyo keer insha Allah taala hadeer muddo 4-5 bilood ah waxba ma hayaan. insha Allah taala hadeer waxaanu joognaa, waxaanu rajaynaynaa wasiirka arrimaha guduhna horu loogu soo maray dhowr jeer ballanqaadkiisii in loo tixgeliyo wasiirka waxbarashada. insha Allah waxaanu ka codsanaynaa inay noo kordhiyaan iskuulka. waxaanu joognaa iskuulkii Godwaraabaha, waxaanu doonaynaa wixii uu noogu ballan qaaday oo si degdeg ah uu noogu qabto ayaanu doonaynaa. iskuulka kokow yahay meeshii haraadkiina sidii buu uga jiraa, haraadkii sidii buu uga jiraa. aad iyo aad baanu ku salaamaynaa kuugu dhagaxdhigii isluulkana waad noogu ballan qaadayna waxaanu doonaynaa inaad noo oofisa baanu kaa rabnaa. waxaanu joognaa iskuulkii Godwaraabaha, iskuulkaasoo qol qura ah, ardayda wax ku barataana ay aad u badan tahay oo ilaa dugsiga ilaa fasalka 6aad 163 arday ayaa wax ku dhigta. 6 fasal la weey macallimiinta dhigtaa waa 3. aad buu ugu yar yahay, qol qura weeye. qolkaas ayaa intii maado oo iskuul lagu dhigin jiray lagu dhigaa. aad iyo aad bay ugu ciriiri tahay, uguna dhiban tahay. waxaanu markaa wasiirka arrimaha guduhuna 2 jeer buu tiraba kormeer ku soo maray oo mar dhagax dhigay, ballanqaad wanaagsanna waa sameeyay. waxaanu maanta ka codsanaynaa ballanqaadkii ayaanu annaguna maanta warbixintan ku daraynaa. ballanqaadkii wasiirku noo dhigay in uu noo fuliyo oo si degdeg ah iskuulka dawladda iyo hay'adaha dawladduba iyo kuwa caalamiguba ay noogu dhisaan ayaanu ka codsanaynaa. Axmed Mursal Askari, Star TV, Ceelafweyn.